Assalaamu calaykum saaxiibayaal kulligiinba meel kastoo aad nagala socotaan halkani waa Garaa TV qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeena waxaa ka mid ah xiisad cusub oo ka taagan magaalada Beledweyne ka gadaal markii ciidanka haramcad ee dowladda Soomaaliya ay dileen taliyihii saldhigga magaalada Beledweyne dowladda Kenya oo ku raad joogta xildhibaankii loo boobay kursiga Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Soomaaliya maxay ku haysataa wararka Garaa TV ayaad ku daawan doontaan madaxweynaha Soomaaliland oo magaalada Hargeysa ku qaabilay xildhibaankii baarlamaanka Britain horgeeyay doodii la xiriiray madax banaanida Soomaaliland fariin cusubna u diray dowladda Ingiriiska waddanka Soomaaliya oo kaalinta labaad ka galay qiimeyn laga dhex sameeyay wadamada qaaradda Afrika iyo dowladda Soomaaliya oo loo ansixiyay adduun lacageed oo dhan 4.3 milyan oo dollar qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne sidaasi naga aqbalee diyaar garooba saaxiibayaal isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aynu ku bilownaa saaxiibayaal sida aad horudhaca wararkeena ku daawateen wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in dagaal uu ka dhacay magaalada xarunta u ah gobolkaasi ee Beledweyne kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada booliiska ee magaaladaasi iyo ciidanka sida gaarka u tababaran ee dowladda Soomaaliya loona yaqaano haramcad kuwaasi oo dowladdu ay dhawaan ku daadguraysay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isku dhamaadka ayaa ka qarxay gudaha saldhigga magaalada Beledweyne waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada ciidan ee halkaasi ku dagaalamay dagaalkaasi ayaa ciidanka sida gaarka u tababaran ee haramcad waxay ku dileen taliyihii saldhigga booliiska magaalada Beledweyne laba xidigle Maxamed Xuseen Maxamuud Duurdage oo ku sugnaa saldhigga magaalada Beledweyne xilliga uu dhacay isku hornimaadka labada ciidan sida ay ogaatay warbaahinta dagaalka ayaa ka dhashay kadib isfahan waa soo kala dhex galay labada ciidankaasi oo ka dhashay dad lagu xirxiray saldhigga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sidoo kalena ciidanka haramcad ee dowladda Soomaaliya ay dhawaan geysay magaalada Beledweyne ayaa isku hornimaadkaasi ku dilay ciidamo kale oo ka tirsan kuwa saldhigga booliiska ee magaalada Beledweyne intii uu socday isku hornimaadka labada dhinac xaaladda ayaa aad u kacsan waxaana magaalada laga dareemay dhaqdhaqaaq xooggan oo ku aadan xiisada ka dhalatay dilka taliyihii booliiska saldhigga magaaladaasi Beledweyne dadka ku sugan magaalada Beledweyne ayaa u sheegaya haatan warbaahinta in gudaha magaalada si weyn looga dareemayo xiisada ka dhalatay dilka taliyahaasi iyadoo ay dib dhaqdhaqaaq u bilaabeen jamhadihii horey looga aasaasay gobolkaasi ee ka soo horjeeday dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle laakiinse dhawaan la dejiyay dhaqdhaqaaqooda dhacdadani ayaa ku soo aadaysa xilli xasaasiya waxaana jirtay in siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay horey uga soo horjeesteen ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad isla markaana hadda dilka ka geystay magaaladaasi kuwaasi oo doorashada darteed loo geeyay magaalada Beledweyne si ay xoog uga dejiyaan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo bulshada gobolkaasi ay u diideen inuu tago Beledweyne si kastaba arrimahani ayaa ku soo aadaya xilli haatan Beledweyne uu ku sugan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo heshiis la gaaray reer Beledweyne kadib kulamo isdaba jooga oo ka dhacay gobolkaasi Hiiraan isla markaana uu la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka gobolkaasi siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka ayaa si weyn uga dayriyay daadguraynta ciidanka haramcad ee la geeyay magaalada Beledweyne kuwaasi oo ay sheegeen
in ay amni darro ka sameynayaan magaalo xasiloon isla markaana la doonayo in lagu boobo kuraasta golaha shacabka ee taalla beledweyn. sidoo kale magaalada beledweyn waxaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ka dhacdo doorashada kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad kuwaasi oo dhowaan lagu dhawaaqay kadib markii uu yimid Cali Guudlaawe. waa hagaag saaxiibayaal wararka muuqaal baahiyaha Garaa TV qaybaha hore ayaa daawanaysaan. booliiska wadanka Kenya ayaa baadigoobaya isla markaana ku raad jooga xildhibaanka shalay ku soo baxay kursigii golaha shacabka ee uu horay ugu fadhiyay gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka 10aad ee dalka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey kaasi oo laga boobay kursigaasi sanadkani. dowladda Kenya ayaana eedeymo la xiriira musuqmaasuq iyo lunsashada lacago yaalay bangi waxay u haysataa shakhsiga ku soo baxay kursigaasi ee doorashadiisu ay ka dhacday magaalada Barawe maalintii Arbacada ahayd ee taariikhdu ay ku beegnayd 16 bisha February 2022 waxaa magaalada Barawe ka dhacday doorashada kursiga golaha shacabka ee Hob 145 taasi uu ku guuleystay xildhibaanka cusub Maxamed Cabdalla Axmed. xildhibaan Maxamed ayaa waxa uu bedelay Cabdiweli Muudey gudoomiye ku-xigeenkii koobaad ee baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday ee 10aad waxaana xilkaasi xildhibaannimo uu ku fadhiyay muddo 20 sanadood. inkastoo Muudey uu tabasho qabay uuna sheegay in laga hor istaagay safarkii uu ku tagi lahaa magaalada Barawe haddana doorashadu waxa ay ku dhacday jadwalkii loo qorsheeyay. wax badan lagama yaqaano bogga siyaasadeed ee xildhibaanka cusub oo inta badan loo arko nin ku cusub saaxada siyaasadda ee wadanka Soomaaliya. balse markii uu kursiga ku soo baxay ayaa dad badani ay magaciisa dib u xasuusteen xilli dhowr sano ka hor si weyn ay u hadal haysay warbaahinta dalka Kenya iyo qaar ka mid ah kuwa caalamka. sanadkii 2016 markii ay Soomaaliya isku diyaarinaysay doorashada guud ee dalka ee haatan muddaxileedkeedu uu dhamaaday waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaad ay dowladda Kenya doonaysay oo wajahayay eedeymo ku saabsan lacaga bangi laga dhacay. taliyihii booliiska ee dalka Kenya ee xilligaasi Joseph ayaa waxa uu amar ku bixiyay in xabsiga loo taxaabo 8 qof oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta bangiyada kuwaasi oo ku jiray Maxamed Cabdalla oo ah xildhibaanka loo doortay kursigaasi Muudey uu ku fadhiyay magaalada Barawe. mas-uuliyiintani oo ka kala socday labada bangi ee National Bank iyo Joyce Bank ayaa loo haystay arrimo la xiriira falal aan sharciga waafaqsanayn inay ku kaceen. Maxamed Cabdalla Axmed waxa uu xilligaasi eedaynta loo soo jeediyay ahaa agaasimaha waaxda farsamada kombiyuutarada ee bangiga National oo xaruntiisu ahayd magaalada Nairobi. liiska dadka ay booliiska Kenya ku raad joogeen ee bangiga National Bank waxay kala ahaayeen Munir Maxamed agaasimaha maamulka, Preface Biko agaasimaha fulinta, George Jaba madaxa howlaha deymaha, Maxamed Cabdalla agaasimaha farsamada. bangiga kale ee Joyce Bank ayaa isla markiiba albaabada la iskugu dhuftay warbaahinta maxalliga ah ayaana waxay tabiyeen inuu lacaga luusaday. weli ma cadda in liiska uu hadda ku socdo iyo Maxamed Cabdalla ayaysan weli gacanta ku dhigin booliiska dalka Kenya waxaana weli taagan kiiskaasi lagu soo eedeeyay iyadoo qaar ka mid ah dadkii kale ee lala soo eedeeyay ay booliisku gacanta ku dhigeen lana horgeeyay maxkamad. isku day la sameeyay oo la doonayay in arrintani wax looga weydiiyo xildhibaanka cusub ee Maxamed Cabdalla ayaysan suurto gelin waxaana uu diiday inuu ka jawaabo telefoonada. kadib sanadkii 2016 ayaa la sheegay inuu u safray dalka Australia halkaasi oo in muddo ah deganaa xildhibaanka cusub. bishii February ee sanadkii la soo dhaafay 7 qof oo uu ku jiray gudoomiyihii hore ee bangiga burburay ee Joyce Bank Maxamed Khan ayaa wajahay dacwado dheeraad ah sida uu qoray wargeyska Business Daily. waxda dacwado ogidda guud ee Kenya ayaa xilligaasi bidhaamisay
in la helay xog cusub oo ku saabsanayd in lacagta la xaday ay gaaraysay ilaa 100 milyan oo dollar. waa tahay saaxiibayaal wararka muuqaal baahiyaha Garaa TV ayaa weli la socotaan. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi culus oo ka socday baarlamaanka Britain kaasi uu horkacayay xildhibaan Jeffen Wilson oo haatan booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. kulanka oo arrimo dhowr ah looga hadlay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Somaliland, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland iyo wakiilka Somaliland ee dalka Ingiriiska. ugu horeyntii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa xildhibaanada uu kula kulmay qasriga madaxtooyada ee magaalada Hargeysa waxa uu uga mahad celiyay doodii ku aadanayd madaxbannaanida Somaliland way dhawaan horgeeyeen golaha baarlamaanka ee dalka Britain, isagoo sidoo kalena kala hadlay adkeynta xiriirka labada dhinac ee Somaliland iyo Ingiriiska. madaxweynaha Somaliland ayaa sidoo kale fariin u diray dhammaan baarlamaanada kale ee caalamka waxaana uu ka dalbaday inay ku daydaan baarlamaanka Britain oo uu istaagay sida uu sheegay inay markaasi eegaan dimuqraadiyadda iyo horumarka ay ku tillaabsatay Somaliland. waa inay ku dhiiradaan inay horkeenaan golayaashooda dooda la xiriidha madaxbannaanida Somaliland maadaama waqtigani yahay kii ay Somaliland iyo shacbigeedu sugayeen xaqii ay beesha caalamka ku lahaayeen, ayaa lagu yiri qoraal laga soo saaray madaxtooyada Somaliland oo uu soo daabacay madaxweyne Biixi. Muuse Biixi oo hadalkiisa wata ayaa sidoo kale ka dalbaday dowladda Britain inay ballaariso xafiiska ay ku leedahay caasimadda Somaliland ee Hargeysa si loo helo adeegyo bulsho oo dhammaystiran isla markaana sare loogu qaado xiriirka haatan ka dhaxeeya Somaliland iyo dowladda Britain. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si miisaan leh waxa uu ugu mahad celiyay xildhibaan Jeffen Wilson kaasi oo dhawaan baarlamaanka Britain horgeeyay mooshin la xiriira in Somaliland loo aqoonsado dal ka madax bannaan Soomaaliya, inkastoo xubnaha kale ee baarlamaanku ay gaashaanka ku dhifteen dooda uu soo gudbiyay xildhibaankaasi. xildhibaankani ayaa horay booqasho ugu yimid magaalada Hargeysa ee Somaliland waxaana uu sheegay inuu halkaasi ku soo arkay nidaam dimuqraadiyadeed iyo horumar amni kaasi oo u baahan in dowladda Britain ay aqoonsato xilligani Somaliland ayaa sanadihii u dambeeyay xoogga saadhay horumarinta siyaasadda arrimaha dibadda walow aysan weli wax xiriir caalami ah oo ku aadan aqoonsigeeda aysan helin, waxaana muddo 30 sano ay baadigoob ugu jirtay inay wadamada caalamka ka hesho aqoonsi xubin ka noqoto golaha qaramada midoobay, laakiin weli dunidu waxay u garanaysaa qayb ka mid ah wadanka Soomaaliya. waa tahay saaxiibayaal shabakada wararka ee Garaa TV ayaa toos inoogala socotaan. dalka Soomaaliya oo muddo dheer dhex maquurayay dhibaatooyin ay gelisay fikir xumo siyaasadeed ayaa kaalinta labaad waxa uu ka galay qiimayn laga dhex sameeyay wadamada qaaradda Afrika taasi oo loo arko mid ceebaysan. qiimaynta la soo saaray oo ku saabsan dalalka ugu badan ee ay ku nool yihiin dadka ku barakacay gudaha dalkooda ayay Soomaaliya ka gashay kaalinta labaad guud ahaan qiimaynta laga sameeyay wadamada qaaradda Afrika. waxaa kaalinta koobaad xirtay dalka Democratic Republic of Congo oo isna tan iyo xornimadiisii aan naqdegin, waxaana dalkani oo ay dunidu iska birilaqaysato gudihiisa ku dacdaraysan 5.3 milyan oo barakacyaal ah, hase yeeshee dalkani waxaa ku nool 90 milyan oo qof. Soomaaliya ayaa iyada waxaa ku barakacsan ku dhawaad 3 milyan oo qofood, taasi oo ka dhigan inay Soomaaliya xitaa ka barakacyaal badan tahay dalka Afrika ugu dadka badan ee Nigeria kaasi oo isaga ay ku barakaceen 2.7 milyan oo barakacyaal ah. Soomaaliya ayaa marka qiimaynta la eego kaalinta koobaad ku jirta marka la isku eego inta milyan ee ku nool dalka iyo tirada barakacyaasha, taasi oo xitaa ay uga sareyso dalka kaalinta koobaad galay ee Congo. barakaca waxaa lagu qeexaa qofka gurigiisa ay dhibaato dagaal, baahi shaqo la'aan iyo kuwo kaleba ka soo wadeen
balse weli ku sugan gudaha dalkiisa isagoo raadinaya nolol ka habboon tii uu uga soo tegay gurigiisa. Soomaaliya ayaa barakacayaasha ugu badani waxay galeen magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka iyadoo looga sameeyay kaamam iyo meelo lagu daryeelo duleedka magaalada, taasi oo loo yaqaano dadka ku barakacay gudaha dalkooda. laakiinse waxaa xusid mudan in dadka iyaguna dalka banaankiisa ku barakacay ay ka badan yihiin tiradaasi marka loo eego qiimeynta guud ee dadka Soomaaliyeed cadadkooda. aan ku siqa wararka guddiga maamulka ee sanduuqa horumarinta qaaradda Afrika ayaa ansixiyay lacag dhan 4.3 milyan oo dollar oo lagu taageerayo horumarinta tirakoobka Soomaaliya. guddiga sanduuqa horumarinta Afrika oo ah daaqada tanaasulka ee kooxda bangiga horumarinta Afrika ayaa ogolaaday deeqdani 14 Febraayo. mashruuca taageerada horumarinta tirakoobka ee Soomaaliya ayaa ka koobnaan doona bixinta kaalmo farsamo iyo tababarida shaqaalaha xafiiska tirakoobka qaranka Soomaaliya iyo waaxda tirakoobka Hirshabelle, Galmudug, Jubbaland. ilaa 90 shaqaale ah ayaa heli doona tababar ku saabsan xog ururinta, isbarbardhigida, falanqaynta iyo faafinta xogta tirakoobka. howlaha kale ee mashruuca waxaa ka mid ah soo saarista buug gacmeedyo iyo tilmaamo la jaanqaadaya hababka caalamiga ah ee wax loo tirakoobo. waxay sidoo kale dhisi doontaa ama ay hormarin doontaa tasiilaadka ICT ee xafiiska qaranka ee tirakoobka iyo waaxda tirakoobka ee dowlad goboleedyada oo ka faa'iideysanaya mashruuca. mashruucani waxa uu qayb ka yahay qorshayaasha dib loogu dhisayo awoodda hay'adaha dowladda Soomaaliya ee ku wiiqmay dhowrkii sano ee colaadaha maqnaashiyaha xog dhaqaale iyo mid bulsho oo hufan ayaa caqabad ku noqotay qorshaynta iyo xanibida maalgashiga dalka. ujeedadu waa in si weyn looga faa'iideysto tirakoobka, gaar ahaan dejinta siyaasadda, qorshaynta, go'aan qaadashada, kormeerka iyo qiimeynta. tani waxay waafaqsan tahay qorshaha horumarinta qaranka ee Soomaaliya ee dalka iyo istiraatiijiyadda qaranka Soomaaliya ee horumarinta tirakoobka. mashruuca taageerada horumarinta tirakoobka ee Soomaaliya waxaa la socda dadaalada kobcinta awoodda xisaabaadka ee bangiga horumarinta Afrika ee dalalka xubnaha ka gobolka. waxa uu la jaan qaadayaa istiraatiijiyadda kooxda bangiga ee wax ka qabashada jilicsanaanta iyo dhisidda adkeynta Afrika. waxaa kale oo ay fulisaa mid ka mid ah mudnaanta istiraatiijiyadeed ee hagaajinta tayada nolosha Afrikaanka. qaybta xisaabaadka ee bangiga ayaa la socon doonta hirgelinta mashruucani. waa tahay taliska ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ayaa war ka soo saaray weeraradii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee ay sheegteen ururka Al-Shabaab. AMISOM ayaa shaacisay inay si kulul u cambaaraynayso weeraradaasi oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab, isla markaana dhaliyay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed. howlgalka AMISOM ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay ka go'an tahay inay xoojiyaan taageerada ay siiyaan Soomaaliya ee ku aadan dagaalka Al-Shabaab si looga adkaado. sidoo kale AMISOM ayaa sheegtay in ay kooxda Al-Shabaab halis weyn ku tahay horumarka dalka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed. howlgalka midowga Afrika ayaa sheegay inay ka go'an tahay taageero ay Soomaaliya siiyaan si loo adkeeyo la dagaalanka argagixisada, isla markaana looga hortago weerarada ay ka fulinayaan waddanka. hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan qalqalamni laga dareemayo qaybo ka mid ah waddanka xilli dalku ku jiro marxalad doorasho. kooxda Al-Shabaabna ay isku dayayso inay qaado weeraro lagu qalqalgelinayo arrimaha doorashada. wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waa naga inta.